الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولليال محاضرة عن بلان سنين عوان كيدو وحوية من هم أهل السنة والجماعة وأي عدة سنة هي جماعة ونسبة شيئة أو كأبتر ستة أهل السنة والجماعة وأيه وهو يقف كسو مسلمة خاصة ضدك ماركتي السنة لو يقانو أهل السنة لو يقانو مركي عالم الإسلام لفيريو هذا جيرتان كمسلمين تا وضدك السنة loo nisbeeyo oo sunnada ku abtirsada iyo shiicada ayaa ugu weyn faraq kalena way jiraan marka ahlu sunna wal jamaa ayay tahay sifaadkeedu waa maxay mowduuca muhaadaradu sidaas uu ku saabsanaan doonaa waa mowduuc aad u baaxad weyn aan muhaadara 5 إلى 6 إلى 7 حتى 20 aan lagu soo koobi karin markii mowduucaas la yiraahdo sida ay tahay looga hadlo aad buu u baaxad weyn yahay laakiin caawa waxaan isku dayayaa insha Allah inaan soo khulaaseeyo waxaan sida u leeyahay mowduucan 458 safha ayaan ka diyaariyay anoo aqoonteyduna ay iska liidato markii loo fiiriyo culimadii islaamka ee diintana soo gaarsiiday ama haddeertaan dadka baraysa waxaan ka diyaariyay ka qoray mowduucaas 458 waa kitaabkaas waa hadda la heli karaa waa madbuuc waxa la yiraahdaa Fathur Rahman fi bayan man hum ahli sunna wal jamaa موضوعاسي وموضوع مهم آد مهم maxaa yeelay qof kasto muslima waxa laga rabaa inuu dariiqi rasuulka diinta ku qaato dariiqi culimada uu ku qaato sunnadu waa adoo diintii qaata dariiqi rasuulku uu noogu keenay aad ku qaadatid jamaacaduna waa adoo wadadii culimada ku qaata هذا ترى دين تنقادنا يا سنة الرسول كان دبقيا علماء الإسلام كانوا وانقرب مريا وحد نقول يسار روح الدعاء وتأسك الشيعان يا نقول يسار مركب وحلا ما مرمانا محا سنة الليرة محا جماعة الليرة لغة وشرعا إن نقانو هذا وحلا مرمانا يا سنة إسكو هيست أهل السنة والجماعة يا إسكو هيستا عدة إسكو هيستا وين لو قادو مثل شيعة مركي لغا هذا لا يوكله أهل السنة أنها يمكو دحيان خوارجتي وحي كهري فرقوين كهرا خوارج لو يقيني أو خوارجتو متقدمين يا متأخرين إليهم متقدمين تي خوارجتا مركي ليراه niman la yiraahdo baadiyo oo dalka Acmaan jooga ayaa ka jira waqooyiga Afrikana meelay ka joogan nimankaas ayagoo hadda khawaarijtii hore ka haray haddana ficilkii khawaarijta ma laha oo hadda ayagoo wax dilaya oo dadkii maaragtay ku taagan oo ama takfiirinaya maaragtay ma aad arkaysid oo waxaad moodaa inay isbedeleen marka waxa isku haysta ahlu sunna wal jamaa oo adinku ma ihdiina annaga isdhahayo qolo walbaaba qolada kale u diidan tahay waa laba qolo bas culimada afarta madhab ku abtirsata ee ama hadda joogta ama qurunti aan soo dhaafnay joogi jirtay iyo ibn Taymiyyah dadka ku abtirsada isku haysta ابن تيمية شخصيا أسأل لك بلابه كدب وحي مسألة أذكر راعي وما أقلدت كان مذاهب تكو أبتر سنة
ومعتقد كودو أبي الحسن الأشعري يا أبو منصور الماتريدي يا إمام الضحاوي يا إمام أحمد بن حنبل سيدا أي مارتي أي كسر نقليان ركبا أو أبو الفرج بن الجوزي كمديهين اعتقاد كان عاصم وما أركه إنه يهاي ابن تيمية شخصيا اعتقاد صحيحة الله أرنو نكون دي هاي وأنا أركض دونه وماذا مروحوا أركابه إن أيسن إلهي عبادتي سبع أيسن ضدك مذاهبتها صورنا كبحي ونصب الشيغان يا إن إلهي عبادتي سبع أيسن قرانين وإله مركي اللي يرأيه يقانين متك أود له القادر على الاختراع متك أود أولا إنه وحي اختراعه أو وح أبوره وحسميه أي يقانين إله أم يقانين إنه يهم متك العابده saasuu ku eedeeyay asaga iska bilaabay soo arki doona aniga iyo qeyrkanaba diintii aabayaalkan haysanay buu yiri diintii aabayaalkana wuxuu ku tilmaamay tii mushrikiinul arab oo ay marka asnaamta ilaahay qeyrka caabud jireen tan kale ku eedeeyo waxay tahay xagga sifaadka ilaahay markii laga hadlayo dariiqii mubtadicada ayay mareen buu leeyahay oo aniga ruuxayga iyo aabayaalkanaba aan sidaas ayaan ahayn uu leeyahay marka taan u soo laaban doona waxa la yiraahdaa waxaan gelayaa maxaa la yiraahdaa sunno waxa la yiraahdaa wada waa la yiraahdaa ha toosnaato ama ha qalloocnaato jid waa la yiraahdaa oo markay saas tahay waxa ku yimid xadiiskii imaam muslim iyo qeyrkiiba ay wariyeen وأها من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة قفكي ودوانا أكسن جدية ودداس أو جدية أجر كيدو ليه عد على عدي وديتان أجر كيدو هليه قفكي ودحن جديسة ودداحن أو جدية dembigeeda uu leeyahay cid alla cid uga dayatana dembigooda uu helayaa marka meeshaas maxaa laga ogaaday sunnadii inay noqotay dariiqaas ha wanaagsanaado ama ha xumaado taa waa la yiraahdaa waxa ayadana sidaas oo kale tusinaya ninkii shaacirka ahaa ee yiri fala tajzi anna min siratin anta sirtaha فأول راض سنة من يسيرها وعورها كأرجع جحن سيرا أدو ودا أدو أدمر يسوع دقن أدو كدق ما يسوع جد كاس أدوها كعب سنها كأرجع جحن قفك كل راض النقضاء قفك أول ريا وقفك مريا جد كقفك مريا يا مركا جد كاس إيا دقن كا ودا أو مريا أما هو حماته أما هو فعناته luqa ahaan waa lagu yiraahdaa waxa kale la yiraahdaa dariiqa maxmuudka ah oo la mahadiyo dhaqanka wanaagsan jidka toosan ayana waa la yiraahdaa oo waa talaleeyahay fulaan min ahli sunnah ay min ahli dariiqati almustaqimati almahmuuda wuxuu kamid yahay dadka wadada mustaqiimka qaaday oo mahmuudada ah la mahadiyo ayadana waa la yiraahdaa waxbayaan ku dheeraanin luqa ahaanteedaas iyo istilaax ahaanteeda waxa hadda labada qoloon rabo inaan u garnaqo oo ay xaq u maartay ka soo dhaxbaxo meesha waxba weyn isagama khilaafsana haday tahay taariifka sunnada luqa ahaan la taariifinayo haday tahay taariifka oo istilaax iyo culimada heshiiskooda sida sunnada lagu taariifiyay wax khilaaf oo meesha ka jira malaha mar muhaddithiintu waxbay ku tilmaamaan usuuliyiintu sibay ku tilmaameen sunnadu فقهاء السبع كتل مامين كل ومعروف وأنا هذا مكتوب وهنديد يا وقت ما داب أو ما ركتي وما أو مغير يا هاي أو عشاها أنت كان حيس المغرب كوي هاي أيام واحد ربعنا سوكو كوبه محا مركز جماعة ليراه قفل بقى مسلم وحوليه هاي أنا طريق الرسول كان كضيانا يا حتى شيعة ساسيلين رسول كيبان رأسنا هاي رسول كعيد كستار ما يسوي حكوا قصبنتها هاي wixii uu jideeyay iyo jidka oo maray inay qaaday ku qasbantaa hadii kale rumaysnaanteeda ayaa been ah marka cid kasta ahli qibla ah sunnada rasuulka madaxu noo saaran yahay ay leeyihiin
maxaa soo haray sunnada rasuulka jidkee lagu qaadanaya jamaacada muslimiinta lagu qaadanaya jidkoodii yaa u horeeya asxaabtii rasuulka shiica halkaas ay nooga hartay waxay leeyihiin sunnada rasuulka waxaan ku qaadanaynaa dariiqi aalubeydka jidkiisa ayaan ku qaadanaynaa markaasay waxay iska dhaadhiciyeen inay rasuulka aalkiisa iyo qaraabadiisa iyo ehelkiisa ay asxaab iyo shiica ka dhigtaan asxaabtiisii kale na ay cadow ka dhigtaan suurtagal maaha marka ninkii adiga awlaadaadii waa jeclahay ku leh laakiin zawjooyinkiisii rasuulka la coloobay oo gaalaysiinaya oo asxaabtii rasuulka la coloobay waxa waaye waxa uu jamaaco haya ma laha ninkaas jamaacadiisii halkaasu ka baxay ilaahayna waatuu qur-aanka ku yidhi waman yushaaqi arasuula min bacdi ma tabayana lahu lhudaa ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيره قفك الرسول كخلافة مركي هنونكو عدادة كقدال أو راع جدك مؤمنين تجد آن أهين سنة الرسول كمركان قادنا وأنا كو قادنا جدك مؤمنين جدك مسلمين أئمة دين تنسوه قارسي جدكو دي وأنا كو قادنا شيعة مركال كاسي ويسد وبرتي oo wax aan jirin oo hatta qof kasto aqli la aysan qaada karin ayay la yimaadeen maxaa yeelay diintii waxa la soo gaarsiiyay oo noo soo naqliyeen xadiisiisi ka qaadanayna warkii rasuulka ficilkii rasuulka qowlkii rasuulka waxa soo dhan waxa laga qaadanayo waa asxaabtii rasuulka marka asxaabtii rasuulka haday ay maaragtay ama takfiiriyeen ama tabdiiciyeen oo waa bidca yiraahdeen ama ay gaalaysiiyeen waxay noqonaysaa marka inaan ay dariiqoodu halka uu ku haray oo ay noo muuqato haddana annaga Soomaali haddaan nahay nama dhex yaalo shiicadu labada qolo hadda sunnada isku haystaa shiica inay ahlu baadil tahay oo isku waafaqsana jamaacadu marka waa ayo jamaacada sida hadda aayada aan sheegaynaba ka muuqanaysa jamaacadu ma aha xilli wax ku kooban meesha aan iska khilaafayno raga ابن تيمية أتباعده ابن تيمية أتباع ديسا waxay iska dhaadhiciyeen salafkii inay saddexdii boqol oo sano hore inay fiicnaayeen laakiin ka gadaal saddexdii boqol oo sano wixii ka dambeeyay inay dadku inxiraafeen oo diintii ka tageen oo inxiraafkaas muxuu yahay leeyihiin wax sahlan maaha tawxiidkii ay lumiyeen ay leeyihiin dadkaas توحيدك إلهي عبادتي سكلية إن اللي قوني إلهي آية يبقى قفين بإليهن أدام تا وحير كتابته ابن تيمية مجموع الفتاوي كتاب ليرا أو فتاوي دي سي أواشي سي اللي أروري يجرى فتاوي دي سي وحوكا كوبان يهي صدن يتدوى مجلد سي أو حالو قري آدو فاق oo hadii maaragtay sida kitaabada qaarkood loo qoro mujalladaadkiisu oo inta ka yaraalahay aad uga yaraalahay waliba 37daas mujallad juskiisa lixaad safxada 258 ibn taymiya wuxuu leeyahay aniga iyo qayrkanaba diintii aabayaalkan haysanay buu leeyahay ka gadaal markay noo cadaatay wixii rasuulku uu la yimid oo ogaanay diintii rasuulku uu la yimid arrintu marka waxay noqotay inaan wixii ilaahay soo dajiyay aan raacno ama se wixii aabayaalkana aan ka helna aan raacno waxaan raacnay buu leeyahay wixii ilaahay oo maaragtay rasuulkiisa uu la soo diray fakana alwaajibu huwa ittiba'u ar-rasul wa an la nakuna mimman qila fihim وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباؤنا آبايالكم حيين وآبايالك آياتها كسو دقين بوليه ومشركين العرب آياتها مشركين العرب يهد وحي كسو دقين هدي اللي يرادو وركالا وحي إلهي أو رسول كسو دجي كالا يقاتا هدي اللي رما يقادا مينا وحي أنه آبايالكنا أنكسو قاردان قادانينا مركاسو هذا الكاسو سوى وحوليه فالواجب اتباع الكتاب المنزل والنبي المرسل وسبيل من أناب إلى الله
فاتبعنا الكتاب والسنة كالمهاجرين والأنصار واجب وحو نقضوا ليهي إن كتابك منزل كهاي راعنه إن النبي مرسل كهاي راعنه عدي إلهي جدك سأول الله بطي جدكو إن راعنا واجب نقضوا مركاسان كتابك يا سنة راعني سيدي مهاجرين يا أنصار وكله دون ما خالف ذلك من دين الآباء وغير الآباء مرة عينه يروحي خلافي وأهدينتي آبيالك إيوه آبيالك غير كدين تود مالو فيرس يا أرنت أسلقبا أنا يكوكلوا ليها أنا غير كي وهبل يهبل مرهم غير كاس وأتباع سوى أو سميستي وفكر أسجى كسر دعي ووحى سوى سكبنا دعيي إن ذاتك مجتمع أو كل حنولي هاي أي دينتي كتجين أو أي لقنكي مشركين العرب دينتو يقاتين مركز ذاتك أو شيء إنك سو مجهول قليل وأتباع سوالي بقار كمدوا أتباع سقار بدن أيان فكر كيس الصحة حقيقة الضبط أيان أولى سعون ومركا ولا يقانا مركا سيدا رجع سيدا ضبطة أو قاتل أتباع سكمل كتبه ده لقى جرانيا هو أن راعين سيدا أو راعين كتبه ده لقى جرانيا هي أقواشو ده مركا ماشاس وهكم وقت مركا إنه أفهمي دتك 6 سنة يسبدلين marka goormay soo bilaabatay marka dadka noocaas goormay soo bilaabatay ma waxay ka bilaabatay qarnigii 8aad ee hijriyada oo isagu joogay miyay ka bilaabatay waa maya sidoo isagu arko waxay ka soo bilaabatay salafkii xilligiis imaamkii Abu Hasan al-Ash'ari oo 260kii dhashay ayuu wuxuu leeyahay wuxuu ku tilmaamayaa إن أو معناها إله أو أفهمي إنه يهي القدرة على الخلق وحبورست أول أوده أيا معناها إله بدأ أي تهي إله معنيه سنة ويفهمين بمعنى القادر إنه يهي يفهمين بوليه متكلمينته الضمضو إلهي أي ماركتي الله هذا أيهو معناها إن يسن إله الله كدجانين أيو كتل ما بين منك أبو الحسن الأشعري يا أتباع ديس هذان عبارة ديسي هذا عن دين أخري واتا وحوليها غلط كثير من أولئك فظنوا أن الإلهية هي القدرة على الخلق وأن الإله بمعنى آلهة وإن العباد يألههم الله لا أنهم هم يألهون الله كما ذكر ذلك طائفة منهم الأشعري وغيره وحولي هذا الكلية معها إلى 8 عبارة أو كلا دوان أيو ابن تيمية أو هذا الله سكلا أو صور نقلينيها معناها لما ديكرو وحاني وحول قصد أهماها أيوة وحمارة تسير هذا الأصيء وقال دموايا لما ديكرو وحولي هاي وحي ليين إله نبدو إني قدرتها وحابورست لكرو إله نمدنا معناه أي تهاي بمعنى آلهة معنى آله قادر معناه أي تهاي الضوامض مركا إنا أيوه أي مارتي وإلهي الله وياهي لكن لا أنهم هم يألهون الله معناه إنا أيوه إلهي الله كدغنا يان maaha inuu asaga ilaahu oo asaga abuuro asaga maamulaya laakiin asagu ayagu inay ilaahay caabudaan saa ma arkaan buu leeyahay kama dakara dalika daa'ifatu minhum al-ash'ari wa ghayruhu saasna waxa sheegay yiri daa'ifo oo ash'ari kamida iyo ghayrkiiba kitaabka uu sida ku leeyahay waa kitaabkiisa la yiraahdo an-nubuwat bogo uu sida ku leeyahay waa boga 49 mu'allaqa kitaabkaas ta'liijay وحال إلى عبد العزيز ابن صالح ضويان وحوليه هاي هذا الفهم الخاطئ قال به الأشعري وتبعه عليه جميع الأشعرية هذا كان قفكا هو قلدن أشعري أيايري وحانا كرة ضمان أشاعر ضمن مركب إمام أبو الحسن الأشعري وإمام سلفي haddii asaga iyo atbaacdiisa ay ku raaceenaysan macnaheeba tawxiidka albaabkii laga soo galayaba ay safahmin
soomaha gaalaysiintu in muddo dheer uu soo bilaabay halka asaga kaliya ma atbaacdiisii raggii raacay oo ibn al-qayyim kamid yahay oo maxamed abdul wahhab kamid yahay oo wiilka uu ahaa abdurrahmaan ibn xasan uu kamid yahay oo wiilkiisa abdul latiif uu kamid yahay dhammaan aqwaashooda sidaas isku raacraaceen haddaan iraa cibaaraadkoodii iyo aqwaashoodii hadda aan akhriyo aan iraahdo wax maaragtay la soo koobi kara ma aha waxa ay leeyihiin tawxiidka dadkaas ay haystaan waa tawxiidkii mushrikiinta mushrikiintu in ilaahay cirka abuuro dhulka abuuro way aaminsanayeen ayaguna intaasay aaminsan yihiin ilaahay awoodiisa iyo abuuristiisa ay aaminsan yihiin laakiin ma aaminsana cibaadadu inuu ilaahay keligii leeyahay labadoodaba waxaa ka maqan tawxiid uluhiyya in ilaahay cibaadada lagu gooni yeelo maca daalika haddaa ilaahay ruubiyadiisa qofkii qira wax u dhiman ma laha ruubiyada ilaahay kaliya maaha ilaaha cirka abuuro ilaaha dhulka abuuro kaliya maaha rububiyadu waxa waaye inaad ilaahay kamaal oo dhan aad ilaahay u rumaydo ilaahay khaaliq midka wax abuuro keligii inuu yahay midka wax maamulo keligii inuu yahay midka cibaadada mutaysta keligii inuu yahay alla kamaal u waajibay inuu yahay inaad rumaydo rububiyadu saasay noqonaysaa marka gaalana rububiyya ma rumaysna oo ilaahay baaba quraankiisa ku sheegayo ulaa'ika alladina kafaruu birabbihim ayuu ilaahay leeyahay wa in ta'ajjab فعجب قولهم إذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم معناها قالوا وحي لين هدان دبرنون عيد نقولنا من لسوء لنا إياه ولا يبين سورة قل ما هي لين إلهي مركم حوله إياه هو سوى هو الرب قوت كفريه مركا قالوا سداس إلهي الربوبية سوى كفريان مركا هلكا وحاد باركتي cibaarada uu Taymiya asagu uu leeyahay aniga qeyrkanaba diinta abayaalkan haysanay ayada nooceedana waxa ku hadlaya Maxamed ibn Abdul Wahhab isaguna wuxuu ku sheegayaa risaaladiisa la yiraahdo rasaa'ishiisa la yiraahdo rasaa'il shakhsiya qaybta shanaad safxada 187 warqad uu u diray reer Riyaad iyo reer Manfuuxa magaalada Riyaad iyo Manfuuxa magaalo la yiraahdo dadkaas oo warqad u diray way saayeen markaa waa dagaal ka dhaxeeyay oo wuxuu lahaa gaalatiin ayaguna waxay lahaayeen gaala maahin marka waxa la yiri war adigoo nin diinta wax ka bartay ah ayaadna dhex joogtay waxaana ma aad sheegi jirin wuxuu waa maxay yahay markaas uu raana isu kii sheegaya wa ana akhbirukum an nafsi wallahi alladhi la ilaha illa huwa لقد طلبت العلم واعتقد من عرفني أن لي معرفة وأنا ذلك الوقت لا أعرف معنى لا إله إلا الله ولا أعرف دين الإسلام قبل هذا الخير الذي من الله به وأنا أنا أسكن شيء أنا علمي عن قلبي ضدك إجراني وحي من أن أنا أقون يا معرفة لا يهاي وقت قاس أنا ما جراني يقول معناها لا إله إلا الله ولا دين إسلامنا ما قرنيه خير كان إلهي وقال الله يستكور إسلامنا ما قرنين توحيد معنى لا إله إلا الله ما أنا قرنين وكذلك مشايخي علماء مشايخنا يدين والله مدود ما منهم رجل عرف ذلك هل إنه أرنتا قرتك من ما هو مشايخ دين هل إنه دين إسلام فهمي أما التوحيد فهمي مشايخ كمد ما هبود مركا واسشبهان لبدا هذا لبدا هذا واسشبهان ابن تيميه مركا وليه ابيالكي دينتي ابيالكي وليه ابين العلماء وها مع عبد الله سداس وكلا ابيس علماء وها قاضي وها مع عبد الله ابيس ابن تيميه ابيس احمد بن عبد الحليم لا عبد الحليم بن عبد السلام عبد الحليم وحو أها نين قاضي وويسنا نوحو أها إمام وكتاب كان منتقى الأخبار اللي يراده وشوكاني وكشر حينيل الأوضارك نينك جمعية أحاديث تاس أحكامتك هاليس وكتاب كقيمك وأووي ونين عالمة مركاسو أسونا وحو ليهي معناها ضد كاسبة إني ستوحيد الدين بفهمينه waxay haysteen asaga iyo ayaga aabayaalka uu ka soo jeedaba inay tii mushrikiinta tahay
وكان كانوا وحوليه هاي أنا يا مشايخ ذي واحد دين إسلام فهمي ما له وليه مركز وحوليه هاي قف كي شيء وليه هاي وعلماء عارض كمده عارض ودول وين أو قبل كنجدي كمده منطقة لنا يا عارض الإله منطقة داس وحا كمده مقالوين كذا حريملا كمده عيينة كمده درعية كمده رياض با كمده منفوحة كمده عمارية كمده مصانع كمده ودول دم واسع دول كاس وحوليه هاي علماء جوجتا هل مت أو كمده أو علماء كمده أصلا معناها لا إله إلا الله فهم كمد ما هم بكوجروا ولا الدين الإسلام مدري قانا كمد ما وعلى سنتين نجدي حجاز مكة مدينة ويسكون دقيقين dadka meeshaas jooga Makay wax ka soo barteen Madiina ka soo barteen qaarkood waxay ka soo barteen qaarkood Iraq waxay qaarkood wax ka soo barteen Masar macnaha culimada deegaankaas joogtaay waxa way caalamul islaami oo dhan waa sufra maxaa yeelay xajka meel kasta looga iimaanay xajkana waa lagu kala faa'iideysanay culimaduna raxalaad ay sameeyeen diinta waa u xariisanay hadda marka intaas marka saa u camimay waxaa marka macnaha aan ka wataa ahlu sunna wal jamaa waxa isku hayaa dad baa waxay la aadaan masaa'isha oo aayaatu sifaat iyo ahadiis sifaat kayfiyada loola macaamilayo xanaabilada iyo maartay madaahibta kale xogaa mararka waa isku qaban jireen zamankii xataa ibn taymiya ka horeeyay marna way isku waafaqi jireen marna khilaafa ka dhexdhici jiray xanaabiladuna laba yahaayeen qaar madaahibta kale waafaqsan oo culimada kale madaahibta kale waafaqsan oo shaaciriya maaturidiyo marka la leeyahay madhabka Abu Hanifa maaturidiyo u badnaayeen ilaa wax yar oo naadira mooyaan faraq ku tiris shaafiiciyaduna waxay ahaayeen i'tiqaad ahaan Abu Hasan al-Ash'ari imaam Abu Mansur al-Maturidi Abu Hasan al-Ash'ari iyo imaam Dahawi imaam Ahmad bin Hanbal aqeedada waxay isugu mashquuliyeen oo ay uga hadleen ama ay ta'alif uga sameeyeen dariiqii asxaabta iyo taabiciinta iyo atbaacu taabiciin ay ku soo socdeen oo i'tiqaadka saxiixa ahaa inaan la taxriifin maadaama dad ahlu bid'a ay yimaadeen ayay difaacayeen ayaa madaahibtaas i'tiqaadka ku salaysan ay ka dhasheen waana dad iswaafaqsan ay ahaayeen oon istakfiirinaynin isna tabdiicinaynin khilaafku waxay arkaa isku khilaafeen takfiir iyo tabdiic ma lahayn marka dadka sunnada isku khilaafay oo firqooyinka kala noqonaya waxa uu shardi ah khilaafkoodu heer inuu gaaro la isgaaraysiyo ama la isbidciyeysiyo marka jamaacadu waa in la qaato dariiqii sunnadii rasuulka dariiqii culimada lagu qaato anagu marka maxaan leenahay oo culimada muslimiintu markastay joogeen ay leeyihiin dariiqaas marna kale ma gooyin dadka ahlu sunnada ah afar calaamay leeyihiin afartaas calaamo waxa weeye calaamada ugu horeysa kitaabka iyo sunnada dariiqa culimada ku qaadanayaan kelmadaas adilla fara badan ay leedahay aayado iyo ahadiis fara badan ay leedahay haddana waxa haddana sifada labaad ah sanadkoodu waa mutasil sanad kala go'aya ma laha maxaa sanadka kala gooya rasuulkii laga soo bilaabo ilaa mashaayikhda annaga diintana soo gaarsiiday lama haayo wax sheekh iyo ardaygiisii ku kala tagay bidciya tahay iyo bidciya tahay ama gaala tahay ama gaala tahay ku kala tagay ma jiro laakiin madhabkan hadda la baxay salafiyada oo ibn taymiya atbaaciisu ay raaceen labada nin oo a'immada ka ah oo ibn taymiya iyo maxamed abdul wahhab ay yihiin mid walbaaba aabihiisu ka bilaabay markii maxamed abdul wahhab uu tagay ee uu Makka aaday oo Madiina uu tagay oo gobolka Ihsan Layra uu tagay oo Ciraaq tagay oo uu raadiyay bal horta sida asagu oo arko aragtida diineed oo qaatay wax ku waafaqsan inuu soo arko oo soo waayay hal qof oo tawxiid u fahansan Soomaaliya helin buu markuu yimidna muxuu bilaabay aabihiisu dacwadii tawxiidku ugu yeeray aabihi oo kitaabadii uu akhrinayay ka kala gooyo oo ka tagay fiqiga asagoon u dhameystirin kitaabadii fiqiga
oo inqidaaca daraasada uu ku sameeyay laakiin annaga alxamdulillaah sanadaan haysanaa haddii qur'aanka ay tahay sanadaan u haysanaa hadday axaadiista tahay sanadaan u haysanaa hadday tahay kutubada mashaayikhda culummada sanadaan u haysanaa imaamu nawowi kitaabkiisa minhaajka can fulaan can fulaan can fulaan can fulaan rag aan inqidaac lahayn oo aan kala go' lahayn oon isbidciyeysiin oon isgaalaysiin aan ku tegaynaa mashaayikhda kutubadooda aan akhrisanayno mashaayikhdaas marka ayaguna waxay ku sii tegayaan ilaa rasuulka laga gaaro rag saa u xiriiro oo aan sanadkooda uusan inqidaac lahayn maxaa kala goynaya sanadka isgaalaysiin iyo isbidciyeysiin marka waa la ogyahay taariikhda culummadaas wax inta yimid dadkii yidhi maya ma fahansanidiin taariikhdaa dheer waxaa hadda laga haayaa ibnu taymiya iyo maxamed abdulhaab meelo kale in la aado maaha waxaa la rabaa loo baahan yahay ninka dhahaaya salafkiiya khilaafka rag hore oo a'imma iyo xanaabila jirta oo madhabkan macnaha khilaafsan dhahaya ha noo keeneen xanaabila dhahaysa tawxiidku ma fahansana dadkan ashaacira tawxiid ma fahansana ilaah uma yaqaanaan macbuud inuu yahay waxaan daalacanayay kitaabka galabtan waxaan fiirsanayay kitaabkii uu lahaa imaamkii ahaa waaxidi waa kitaabka ah tafsiirka ah oo uu leeyahay imaamkaas leeyahay waxaa la yidhaha albasiit ninbaa rag baa la jinna guddi dhan ayaa waxay u sameeyeen kitaabkaas taxqiiq kitaab weyn waaye madbuuc kitaabka markuu makhduud yahay waa laga soo saaraa hadda kutubada makhduudaadkooda rag baa kulfa iyo ijtihaad geliya marka camalka ay qabteen oo kitaabkaas in makhduud laga soo saaray madbuuc laga dhigay ah waa aad bay ugu mahadsan yihiin oo waa ku fiican yihiin laakiin markii lajnadaasi waxay yidhaahdeen waaxidi waa ashcariyana waxay qabaan ilaah waxay u yaqaaniin inuu yahay midka qaadirka ah oo ikhtiraca inuu wax abuuro oo wax ikhtiraacdo awoodda u leh laakiin uma yaqaanaan inuu yahay macbuud ilaah inuu yahay midka macbuudka la caabudo uma yaqaanaan muqaddamadu ku leeyahay waa yaaba kitaabkaas jaamacadda imaam maxamed ibnu sacuud ayaa rag ka baxay oo dictooro qaadanayay ayaa isugu tegay oo kitaabkaas soo saaray marka kitaabkii aan dhex galay marka juskiisa 17 kitaabkaas safxada 554 wuxuu leeyahay إذا كان الله هو الخالق وحده وجب أن يكون هو المعبود وحده من غير شريك وواحدي وحير هدي إلهي أو يهمتك وحبور كليس بلو فيرس إلهي هدو يها خالق وحبور كلي هدو يهي وحواجبه إنه نقضه متك أسقو كلي عبادة بتيست أحد كالعابد محل وعابده إنه متك أود ليهي إنه متك كامل كايهي إنه متك منعم كاهي مر والبعض عليه كون نعمانية كون بربارينية أو كون إرزاقية أو مارتي نعمان عدكو سيكرت لا أركو سينية هودا سو كسينية إنها سو كسينية مقلكو إلهي كسي قلبك هذا حكو قراني سو كسي ما دام أو نقضي إلهي منعم كا أن مارتي أن وحا نعموينك أو بحية عد كيني كرتي يسجلين هذا إلهي مدير يمدوين أسقع بحية ساسو حكم متيستيمدك كلي عبادة مدن وياي عبادتنا maxay tahay waa khuduuca iyo isduleynta iyo adeecida ku dhisan itiqaadka rabbinimo laga aaminsan yahay cid loo khuduucayo hadaad cid u khuduucdo waalidka aad u khuduucdo mesela waaba lagu amray cibaado ma hadaad waalidka adeecdo cibaado ma laakiin hadaad adeecdo أحد كأمن سنتهي إنه ربي هي هذا إلهي هنا وعبادتي قمان هذا حقها هي هذا الله غير كي ربي إنما كأمن تنا ومدة كوجالو بس مركز افتراها أنت عليك إمارة أرنت عن خلاف كذا حنونك إلى هذا بلارك منهج من آيات وحكوسه صعدا قرن جسيد لا يصاب بالله إلا حتى وحال الدراسين يا إن العلماء آباء والد كناهي إن التوحيد فان سنين markaas maxay noqdeen saddex qaybood ay noqdeen
qaar waxay leeyihiin tawxiidka ma fahansana laakiin lama gaalaysiin karo ilaahay ha u naxariisto sheekh cali warsame wadaad reer burca u ahaa ictisaamkana madaxba u ahaa waxaan aad uga maaragtay mahad celinayaa fahamka uu fahmay manhajkan inuu qaldan yahay oo takfiiri yahay waa lagu kacay asxaabtiisina ka mid aha ku kacay maca daalika wuxuu leeyahay kitaab uu qoray oo aan arkay oo aan daabacday khadkan ku arkay hadda in weli oo maaragtay taabkii si caadi in loo faafiyay allahu aclam laakiin kitaabkaas anigu khadkan ku arkay naqd al-intisaar ala al-a'immati al-abraar ayaa magacaas ayuu watay wuxuu yidhi waxaan soo galay magaalada muqdisho 1969kii masaajidka maqaamka loo yaqaano oo xamar weyne ku yaal ayaan ku soo dukaday buu dadkii baan waxaan kala hadlay buu tawxiidka macnaha dadkii uu tawxiidka ugu yeeray tawxiidkan kala hadlay macnaha dadkii masaajidka ku dukanayay yaan tawxiidka kala hadlay buu waa la fahmi karaa markaas waxay imaam waxa uu nin leeyahay Sheekh Abdullah dadkii waxay yiraahdeen wahaabi naga fariis waa la igu buuqay buu hatta waa la dili tagay ilaa uu celiyo wadaadkii Sheekh Abdullah imaamka ahaa uu ninkan qariib waaye magaalada ku cusub iska dhaafo wuxuu yiri wiil yar oo gadaal u dukanayay masaajidka ayaa ii yimid oo adeer jamaacadii tawxiidkan ku geeyay kaalay gacanta uu qabtay guri wuxuu ii geeyay 20 nin ay ku jirto oo abshir bacad ka mid yahay oo uu shiqu yahay Sheekh Nuur Cali Culow marka asaguna dadka tawxiidka uu kala hadlayay wiilkina wuxuu yiri jamaacadii tawxiidkan ku geeyna maxuu yiri marka Sheekh Cali Warsame wuxuu yiri tawxiidkaasna sanadkaas waa bishii aan jooga xamar inqilaab ku dhacay oo maxaa si aad dalka inqilaabo sanadkaasna waa sanadkan tawxiidka qaato sanadkaas waa sanadkii aan tawxiidka qaatay tawxiidkaas oo ah midka Soomaaliya soo galay 1962 marka lan taariikhdiisa akhriyana waxaan ku arkay kontomeeyadii ayaan quraanka hargeysa ku bartay walaalkay ayaa gurigiisaan joogan ku bartay oo shaqaale ahaayo dawladeed macnaha ma kulli maamulkii markaa meesha ka jiray cilmigana markaan quraanka bartay kadib dir dhawaan doonto marka asagoon tawxiidka fahmin oo quraanka soo bartay funuunta yaryarna kutubada yarna uu soo akhristay waa ninkii ugu roonaa jamaacadaas ictisaamka waa ninkii ugu roonaayo dareemay fikirkan inuu takfiir yahay oo takfiir ku jiro maxaa Abdulhaab iyo Ibn Qayyim iyo Ibn Taymiyyah saddexaas kaliya maxaa saddexaas kaliya culimo ka dhigaynaa culimadu waa badantood raayxatu takfiira ka soo urahay macnaha kadib markii la canaantay oo la radiyay wuxuu yiri wali inaan madaaristeena ku dhigayno manhajkoodii ka zuulimayno wali waa haysanaa markaan u laabto waa midda koowaad waa ittisaalu sanadkoodu mutasil wuxuu yahay waxa laga arkaa ahlu sunna wal jamaa afarta madhab ku abtirsata Abu al-Hasan al-Ash'ari Abu Mansur al-Maturidi iyo raga ku abtirsay Imam Ahmad ibn Hanbal iyo Imam Dhahawi kulli waa iswada waafaqsan aqeedadooda waxa dhacay shir ka dhacay 2016 wuxuu ka dhacay dalka Kuwait saddex bari ayaa loo fadhiyay waxa laga hadlayay mowduuca hadda anigu waan ka hadlayo ya ahlu sunna wal jamaa ayaa laga hadlayay waxa hogaaminayay culimada Sacuudiga oo maaragtay jaamacadaas Maxamed bin Sacuud iyo ragaas hogaaminayay dalalka islaamkana wixii ku aragtay waxay heli kareen way soo wateen waxay ku tilmaameen bunuudi iyo qodobadii shirka ka soo baxay saddex bari kadib waxa kamid ahaa aimada afarta waa
a'immadii looga dayanayay xagga caqaa'idka iyo tawxiidka iyo xagga furuucda iyo madhabkaba looga dayanayay atbaacdoodii waxay uga daydeen fiqhigii iyo furuucdii laakiin tawxiidkii waa ku khilaafeen marka afarta madhab oo tawxiidkii a'immadii ku khilaaftay ayaa meeshii laga sheegay ahlu sunna wal jamaacana waxa ay yiraahdeen dadka lagu naynaaso adaa'ifatul mansuura ahlul hadiis as-salafiyuun awlahaasay ku sheegeen marka meeshaas maxaad ka maqashay ka ogaatay atbaacdii haddii ay leexdeen oo tawxiidkii ka leexdeen yaa tawxiidkii toosiyey ibnu taymiya qarnigu u ahaa qarnigii 8aad meeshaas sanadkeedu ma go'an yahay waa go'an yahay ilaahay quraankiisa wuxuu ku yiri suuratul faatiha waa suurad aad u cajiib badan ihdina siraatal mustaqiim siraatal ladiina an'amta calayhim ilaahay wuxuu leeyahay oo na barayaa inaan niraahno markaan ilaahay garanno macrifadiisa nicmooyinkiisa ilaahay uga shukrino aan isaga kaliya cibaadada ku khasisnay kadib isaga kaliya maaragtaan kaalmo weydiisanay ayaa waxa la leeyahay ilaahay waxaad nagu hanuunisaa wadada mustaqiimka ah ee toosan wadada mustaqiimka marka waa tuma siraatal ladiina an'amta calayhim kuwa aad u nicmaysay jidkoodii waay kuwa loo nicmeeyana waayo أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء إلهي وحكوت المامي كو اللون إليهين صديقين تي ألو قرمري شهداء دي صالحين تي وحسن أولئك الرفيقة أولئك إليه كوا سا وحمارتي إن ودائي الصاحب لغنكتو كوا سا كوا نكسناد أولئك إليه مركا وحين تسنى إسا مركا آيات داسي inay tahay jamaacada iyo dadka la raacayo iyo inuu sanadkooduna uu toosan yahay inay culimada yihiin culimadu ma aha salaf iyo khalaf iyo kala malaha culimada salaf marka la leeyahay waa kuwii suubanaa ee wanaagsanaa ee kuwoodii xumaa ma aha marka khalaf la leeyahana waxaaba la yiraahdaa kuwii ayaga ka horeeyay khayrka uga dardayda marka la yiraahdo khalaf iyo khalf وكلا لو فخلف من بعدهم خلف وإلهين خلف وحواي مركي لام كلور هيبه كوا ها مركز سداس أيه وحي نقنيسا مركا إني أي كوي هراء سلف كي كوا خير كوجا دبت تجي أو كراعي كوا سي نقنيان مركا أفرت صفاء أهل السنة والجماعة إلى هاي صفات كواد وحن كل شيء اتصال سنة صفات كواد وحن كل شيء كتاب كي السنة إن طريق علماء كراعان تلباد وحن كل شيء سنة كود إنه حريرية سنة كود إنه حريرية هاي أدلاد فربضان أي شيء جاي أو أي كمتها هاي وهكذا حديث رسولك أو يري ولن تزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله حديث الإمام البخاري يا وري مسلمين تأما ومدان أرنتو كذولي ما يسمتها سنين إني تاي إلا أي ساعة قيامة كدعو مركو رسولك انت حريق رساء جاحي أو يري وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه آيات أو أخرين معناها ودادة توصن هل الراعي لليه وطريق علماء إمران رسولكنا وحو ليه أمداني أرنتي إنay توصن tahay ka zuuli mayso ilaa ay qiyaamadu ka dhacdo maxay ku toosan tahay culumada diinka isu soo dhiibaysa kala soo naqlinaysa waxa kamid ah xadiiskii kale asagana uu wariyay ibn maajah ee sunnada rasuulka in la raaco uu ku wariyay baabkeeda لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته إلهي الدين كان إنه طلالة يكزولي مايو هذا طلال وطلاليا قف عدمته وجيت يسواق وطلالك طلالك هذا طلالك أو دحلي طلالك أو دحلي كزولي مايو أو مركز دتك على طلاليا علماء الدين تحمباريانا إلهي الدين كيس أيو شغالة وقديجيا تاسنا وحديث كلام ابن ماجه وريي ابن شاهين وحوليه هي
markuu xadiiskan sharxay ayuu wuxuu leeyahay xadiiskan iyo xadiis kale oo ah inna lillahi bikulli bid'atin kiida al-islaam wa ahluhu biha waliyun yadubbu anhu ilaahay waxa uu sugnaaday bid'a kasta islaamka lagu dhakrayay iyo ehelkiisa wali ilaahay oo bidcadaas reeba oo dadka ka celiya ilaahay leeyahay marka wuxuu leeyahay soo arinta labada xadiis sharxaya waa culimada uu ilaahay leeyahay culimada weeyuu leeyahay ilaahay culimada wuxuu ka dhigay hanuun buu caalamka dhan uga dhigay xujo ilaahay dariiqa mustaqiimka culimada uga dhigay waa kuwa ilaahay tusinaya culimada dadka ilaahay baraya waa kuwa sunnadiisa iyo jidkii uu ilaahay amray oo iyo wixii ilaahay ka reebay waa kuwa dadka tusinaya arintaas ilaahay diinkiisana waxaan ayaga ahayn lagu ma garto culimadaas baa lagu garanaya maxaa yeelay cinaayay u qabaan oo way u qasdeen macrifo in ilaahay gartaan dadkana garansiiyaan ilaahay diinkiisa inay gartaan ayay juhdigooda iyo waqtigooda ku bixiyeen oo dadkana ay garansiiyaan marka xadiiskaasna sidaas uga mid yahay waxa kamid ah xadiiskii imaamkii Abu Daawud oo sunankiisa ku wariyay oo inna Allaha yab'athu li hadhihi al-ummah ala ra'si kulli 100 sanatin man yujaddidu laha diinaha ilaahay ummadan wuxuu u soo saarayaa 100 sano kasta bilowgeeda ahad diinta u cusboonaysiiya cusboonaysiinta diinta maxay tahay culimada ayaga fasiray waxa la cusboonaysiinaya waa dadku dhaqankoodii ay diinta ku dhaqmaayeen oo ay habac iyo dabacsanaan ay timid ayaa la xoojinayaa ama diinta ilaahay uu soo dejiyay ayadu taasi waa diin aan marna aan waxba gaaraynin ayadu tajdiid uma baahna diintaasi tajdiid uma baahna ku dhaqidmideedii ayaa dadka markay futuur ayaa la cusboonaysiinaya oo dadkii ayaa waxa u soo baxaya imaam ku tirtirsiya oo dadkii diinta baraya oo daaci ah oo dadka maartay hagaajinayo islaaxinayo waxay haleeyeen hagaajinaya boqol kasta la soo saaraya markii la isu gar dhigto boqolaalkii la soo maray dadkii mujaddidiinta ahaa culimada afarta madhab isku raacday oo dariiqa martay ayay waafaqsan yihiin marka loo eego ibn Taymiyyah atbaacdiisa waxa kamid ah oo boqolkii ugu horeeyay Umar bin Abdul Aziz ayuu ahaa boqolkii xiga wuxuu ahaa Imam Shafi'i boqolkii xiga wuxuu ahaa Abu al-Abbas ibn Surayj xaafidka ibn Asakir wuxuu asagu rajaxay oo kitaabkiisa Tabyiin kadib al-Muftari uu ku sheegay inuu yahay al-Hasan al-Ash'ari laakiin waxa loo badan yahay ibn Surayj inuu yahay qarni afraad waxa lagu sheegay Abu Sahl as-Sa'luki waxa kale la sheegay al-Qadi ibn al-Baqallani waxa kale la sheegay Abu Hamid al-Isfirayini inuu yahay adaragaas oo dhan waa rag wada ashaacira ah culimada mujaddidiinta mucdamkooda inta ay culimadu sheegeen waxay u badan yihiin mucdamkoodu inay maaragtay shaafiiciyana yihiin ashaacirana yihiin hadama waxaan anagu niri waa wax culimadu kutubada ay ku soo taqriiriyeen oo ilaa culimadu waa marqaatiyaalkii Ilaahay ee dhulka joogay culimo iska dhaaf bani aadamka caadiga ah waxa lagu sheegay dadku inay shuhada yihiin ay marqaatiyaal yihiin oo dadka amaantoodu qofka isku raacaan qofkaan inuu hal khayr yahay in khayrkaas uu waajibayo marka Imam Nawawi majmuuca markuu ka hadlay qofaynka la masaxo ayuu meeshaas wuxuu ku sheegayaa mujaddidiinta qarnigii koowaad wuxuu ku sheegay Umar bin Abdul Aziz kii labaad Imam Shafi'i ayuu ku sheegay kii saddexaadna Ibn Surayj ayuu ku sheegay ka afraadna Abu Hamid ayuu ku sheegay Abu Hamid al-Isfirayini waay marka inta saas ragaas u sheegay markuu ka hadlayay kitaabkiisa tahdiibka la yiraah oo maaragtay luqadka iyo uga hadlay iyo asmaada uga hadlay ayadana markaas sidaas oo kale wuxuu sheegay imaamku rag badan ayuu ayagana sheegay oo ay ragaan ay kamid yihiin ayuu sheegay waxa kale oo asagana sidaas oo kale sheegay mujaddidiinta rag badan Yaafici oo kale asaguna wuu sheegay
haddaan marka imaam nawawi warkiisa aan sii wado qarnigii shanaad wuxuu ku sheegay inuu yahay xujjatul islaam al-Ghazali asaga Ghazali laguma labayn cidna laguma labayn qarnigii shanaad mujaddidka ragga mujaddidiinta ka hadlo dhan way soo wada qaateen imaam Ghazali inuu yahay qarnigii shanaad saasoo kale qarnigii lixaad waxa la sheegay Fakhruddin ar-Razi waa la garanayaa waa imaam weyn oo a'imadii islaamka kamid ah waxa asagana lagu labeeyo oo ayadana la sheegay Raafici waa imaam weyn asagana a'imada kamid ah labadaas ayaa qarnigii lixaad ayaa lagu sheegay waa culimadu say badan yihiin waxa jiray rag yiri oo asagana sheegay ninka la yiraahdo imaamka la yiraahdo Abdul Ghani waa kitaabka Umdatul Ahkam kana iska leh madhabkiisu waa Hanbali waxa culimadu ay ka hadleen oo uu kamid yahay Safiyuddin kitaabkiisa la yiraahdo Al-Wafi bil Wafiyat juska 4 safxada 140 wuxuu ku sheegay in uusan Abdul Ghani uusan raaci karin mujaddidiintii ka horeysay iyo kuwii ka dambeeyay midna inaysan isku manhaj noqon karin xagga hadii la yiraahdo furuucda waa nin saaxiib al-madhab ah oo Imaam Ahmed bin Hanbal madhabkiisa haysta laakiin xagga i'tiqaadka markii la yiraahdo ayuu wuxuu ka leexday mujaddidiintii ka horeysay iyo kuwii ka dambeeyay i'tiqaadkooda uu ku khilaafay arinta inay sidaa tahana sheekha ayaa faahfaahinaya Safiyuddin ayaa faahfaahinaya wuxuu leeyahay xaafidku Abdul Ghani culamadii zamankiisa wuu khilaafay iyo wax alla wixii maaragtay lagu sheegay mujaddidiin inay yihiin waa khilaafay marka maxaa lagu garanayaa inuu khilaafay waxa lagu garanayaa Ibn Kathir uu ka hadlay juska 13 al-Bidaya wa Nihaya safxada 26 wuxuu leeyahay fitna ayaa Dimashq ka dhacday fitnadaasna waxa sabab u ahaa xaafidkii Abdul Ghani al-Maqdis waxayna ku dhacday wuxuu ka hadlay meeshii maqsuuradii Xanaabilada jaamici umawiyada masjidul jaamici al-umawi ay ku lahaayeen ayuu wuxuu ka hadlay masaa'il aqiido ka hadlay aqiidadaasna sidii aqiidadii culimadii ay qabeen si ka gedisan ayuu sheegay waxa marka kulmay qaadiga la yiraahdo Ibn Zaki iyo Diyauddin al-Khatib suldaankii weynaa ayay la kulmeen Amir Sarimuddin Barqash ayay la kulmeen waxa la yiraahdo arinta Abdul Ghani waa in majlis loo caqidaa majlis ayaa loo caqiday oo culimadii la isugu yeeray waxa laga hadlayaa Abdul Ghanina waxa waaye masalada istiwaha iyo masalada nuzuulka iyo xarafka iyo sawdka oo Ilaahay kalaamkiisa loo nisbeeyay afartaas mas'ala ayaa laga hadlay culimadii afarta madhabna waa la isu keenay qudaadoodii ragii ugu sareeyay majliskaas marka ninka la yiraahdo an-Najm al-Hanbali imaamkii marka Xanaabilada xilligaas u joogay wuxuu waafaqay saddexdii madhab a'imadii kale ee madaahibta kale matalayay way is wada raaceen fuqahadii marka baqiyatul fuqahaana sidaasay ku waafaqeen uu leeyahay laakiin culimadii markay halkaas ku raaceen Abdul Ghani wuu soo laabadiiday hadalkiisii ayuu ayiday sidii markii hore uu sheegay marka fuqahadiina way ka hor yimaadeen oo waxay isku waafaqeen hadalka inuu qaldan yahay sida uu sheegay waliba ilzaamaad ay ku laazimiyeen shariica oo falxun laakiin asagoo uusan laazimsan macnaha ilzaamaadkaas haduu laazimsana waxa ka dhalan lahayd macnaha in ay maaragtay diinka bax noqoto laakiin warka uu yiri waxa ka dhalanay ayaa la yiri warkaaga hadii sida loo qaato sidaas ka dhalanaysa macnaha istiwu muxuu yahay matal ka soo qaad ilaahay wuxuu ku fasiray inuu arshiga ka kor joogo haddana nuzuulka muxuu ku fasiray ilaahay inuu samaa'udiyada yimid oo inta soo intiqaalay macnaha sidaas hadalkiisii ka laazimaysa waa xaqiiqo yiri istiwuna waa xaqiiqo oo inuu ilaahay macnaha xaqiiqatul istiwa marna waxa loo isticmaalaa marna wuxuu noqdaa macnaha shay ka koreeyo oo kor saaran marna shay ka koreeyo oo xagga awoodda iyo saldanada iyo mulkiga uga sareeyo waa marka istiwu sareyn wuu noqdaa marna wuxuu noqdaa sareyn xagga macnaha ah marna wuxuu noqdaa sareyn xagga xisiga iyo muuqaalka ah
marka saraynta xisiga ah oo shay ka koreeya ilaahay waa ka nasahan yahay oo taa culimadu isku waafaqeen saasoo kale nuzuulku inuu yahay intiqaal inta ilaahay meel joogay oo ka soo guuro meel kale aaday taa way diideen marka xaqiiqada hada labadiiba tiri waxa ka dhalanaysa hadalkaagi laazim waxa ka laazimaya inaad ilaahay intiqaal ku sheegto marka intiqaalkii ma laazimsan laakiin wuxuu yiri xaqiiqadoodii ay marka hadalkii markii sidaas la yiri yaa ninkii imaamka ahaa wuxuu yiri adiga kaligaa ma yaa saxan culimada kalena waa qaldayn haa kaligaa yaa saxan culimadana waa qaldayn waa inaad uga baxdaa yiri saddex maalin aan ku siinayaa macnaha wuxuu waa wadanka inaad ka baxdaa markaas uu asagu codsaday saddex bari la siiyo saddexdii bari baa la siiyay saddexdii bari Masar uu ku aaday dhankan Suuriya uu ka tagay Masar markuu tagana buuqii uu kala bilaabay marka waxaan uga jeedaa Abdul Ghani oo lagu sheegay qarnigii 6aad laba arimoodba kuma noqon karo wuxuu dhintay 600 oo kow ah imaamka Fakhruddin Raazina 606 uu dhintay maxaa la rabaa mujaddidku sanad kasta bilowgiisa leeyahay raasa kulla sanad kulla 100 sanad marka inuu sanadkii horena soo dhamaysto asagoo mashhuur ah cilmigiisa muntafica boqolka sano dambe bilaabanayna u galo Abdul Ghani marka waxa lagu cileeyay boqolkii sano hore 600 ku yiri ma gelintii dambe cilmigiisina muxuu noqday midkaas qabqabsiga badan oo culimadii maartay asagoo ay oo maartay looga waday magaaladii Dimashq oo joogi jiray oo haddana Masar buuqi ka kaashay marka halkaas ay ku leeyihiin ogow waxay dhaheen haddana qarniga 14aad ayaa Ibn Uthaymin iyo Ibn Baz iyo Albani ayaa waxay noqdeen mujaddidiintii nimankaas marka mujaddidiin ayagana ma noqon karaan waxa sabab u ah Ibn Uthaymin aqidatu dahawiya sharxa uu ku sharx kitaabka uu ku sharxay wuxuu ku leeyahay ilaahi inuu suurad bani aadam leeyahay oo hadii warqadan photocopy-ga sawir la geliyo ay xagga ka soo boodo حروفته وحروفتي صدرك وصدرك واسكمت wax farqiga u dhaxeeyo malaha waxa ilaahay in Allah khalaqa aadam ala surati dhahaya wa rasuulka ilaahay asagana naga yaqaan marka dhamiirkaas ilaahay suuradii oo waxa nabi aadam ka dhigay markii horena tafsiir aad u macaan oo ku soo fasiray Allah ma meesha uu leexdo macnaha markuu leeyahay ilaahay waa abuuray nabi aadam suuradiisu ku abuuray leeyahay waa suurad ilaahay asagoo uu sameeyo oo ugu tala galay waaye suuradu waa maaha ilaahay maaragtay si uu kaayo ka dhiga maaha idaafadu waa tashriif uu leeyahay sida hashi ilaahay naaqatullah iyo baytullah markii la yiraahdo sida isaguri ilaahay oo degan yahay sanu ahayn ayaa suuradaas markii ilaahay loo idaafay suurada asagoo abuuray uu leeyahay macnaha hadal macaan oo ku soo fasiraya markuu sidaas yiraahday kadib oo rugmaday marka nin yiri ilaahay nabi aadam uu ogyahay hada waxa arkaysaa dad kala duwan mid hargeysa jooga waxaan arkay dhahaya ilaahay nabi aadam uu ogyahay lama dhihine ilaahay suuradii nabi aadam uu leeyahay yani suuradii nabi aadam uu leeyahay هاي سورة النبي آدم وليه إلهي وما كمها وأنا ليها وأنا إنكريا مركب واحد هاي ساسو كلا إلهي صفات كيسان ابن عثيمين وحكوش بها يا صفات كمخلوقات إلهي سرين أو سريو حدنا أو مع النجاي هاي أيان شيء يا أبوي مركز ضيح كم مثالي ضيح كم مثالي كرو شوقا افتين كيسنا وأنا لشوقا وعكم مثالي نند سكرسكال عيان وطي انت دوم برغشتي بورفولا يري وايد لا جيراه قال دغال ومعناه u jeedaa marka مثال الهي مخلوق يسملنا الهي كما شبهه ولله المثل الاعلى ليس كمثله شيء فلا تضربوا لله الامثال الهي مثال لو سو قدر ما الباني من نقول كره مجدد من نقول كره
تحذير الساجد عن اتخاذ القبور ماركيس تاريخ لما سو نقلين علماء مذاهبته وحي كلا برانيه هذو شافعي هي مد حنبلي وكبرانيه مد حنفي وكبرانيه مد مالكي وكبرانيه لما سو نقلين ايغو استبديعينيا اما استكفيرينيا هذا maxaan haynaa waxaan haynaa inay ayaga isgaalaysiinayaan inay isdilayaan inay maaragtay ay farq kala leeyihiin abul hasan al-ash'ari iyo atbaacdiisu tawxiidka ma fahansana aye qaar waxay leeyihiin waa muslim yeesaba fahansanaan la gaalaysiimay oo maxaa ku dhacay jaahilnimo aan u cudur daarayna dacwadii wali ma gaarin saxiixada ahayd qaarna waxay leeyihiin war ma ninka aad leedahay ilaahay qeyrkii oo caabuda aad muslim leedahay waa arkaysaa kuwa waxay ku leeyihiin dadku tawxiidkii ma haystaan shirkiya ka jira goboladaas gobolka hebela mudug iyo galguduud iyo dacwadii tawxiidka kama jirto shirkiya ka jira dadkina waa muslim walkala adigu dhinac u dhig dad aan tawxiidkii fahansanayn shirkina ka jiro oo muslim marka qaar saasay dhaheen qaarna waxay leeyihiin dadkaan tawxiid ma haystaane shirkina waa ku jiraan waa gaalo adinka soo ma dadkaas oo muslimaadna adin adinkuna gaalatiin intaas baqaybahaas oo dhan waa ayaga leh marka waxa ay qaybahaas ka qaateenna waa hadalkii ibn taymiya iyo ibn qayyim ibn taymiya markii loo soo diray rag culamaa laba nin oo rasuulaha loo soo diray macnaha fariin gaarsiinay waxa la yiri majlisa lagu caqiday madaxdii muslimiinta iyo culimadii joogta masaa'ila lagala dooda imaw ma idin ma hayo waa loo soo noqday haddana mar kale imaw waa leeyahay asiga marka wuxuu leeyahay waxaan yiri kuwan diintii bedelayo kuwan murtasiqada ah kuwan ridoobayo زنادقه مبدلين دينهم مرتدين سدح الصفوف كتلمان وايوه ددك او سياس ليه وعلمدي يا امردي كل مع ذلك ددكاس علمigooda iyo dulqaadkooda asagoo saas xukumayo hadana ku hadlaya maxba ma ayna u dhibin waa la tacaadufay waa loo dhimrinay waa loo naxariisanay markalena wuxuu leeyahay hadalka aad leedihiin hadaan anigu iraahdo diinta ka baxaya macnaha markaas waxaad moodaa inuu ayaga adinka diinta kama aad bixin jaahilnimo aydan hayda laakiin anigu sida aad dhahaydaan hadaan iraahdo diinta ka baxaya markaasna maxay tahay labadiiba marka waxaad arkaysaa ibn taymiya atbaacdiisi takfiirkii sariixa ay ku haysta takfiirkan oo maaragtay la isku cudraa oo maaragtay la takfiirinayo leeyahay qofkan jahli ahaayana kuwa kale oo hayaad arkaysaa marka waxay tahay sifaadkaas afarta ah ay ahlus sunna wal jamaa leeyihiin ibn taymiya atbaacdiisina saddex sifay leeyihiin saddexda sifo waxa waaye waa takfiir in kamida qayb kamida waa tan hadda idin akhriyay waxa kamida tajsiim oo ilaahay maaragtay makhluuqiisa jismi ilaahay lagu tilmaamo ama si sariixa jismiha loogu tilmaamo ama si jismiga macnihiisa lagu tilmaamo in idil iraada ilaahay yadu leeyahay yaduna waa xaqiiqo waana cayn oo yadu cayn waay salafku waxay yiraahdeen yadu sifatin waay yada ilaahay ma aha jismi jaarixana ma aha waa sifo ayaguna maxay leeyihiin waa cayn bay leeyihiin cayn waay leeyihiin waa xaqiiqo leeyihiin waxa la rabaa moogtahay in la ogaado madhabka salafka iyo nimankan salafiyan waxa ay ku kala duwan yihiin marka tajsiimkaas ayaa hadalada ku tag hadii la yiraahdo hal akhriyana hadee ila 40 nuqul ka badan ayaan maaragtay ayaan soo naqlin karnaa hadeerna inta qaybo kamida waa taa inta aan idin sheegay marka waxa jirta mid kale taxriifku malaha xad malaha ninba hal mujallad ka qoray kitabadii sida ay u taxriifiyeen kutubkii waxa la leeyahay waa la daabacayaa meelaha laga bedelayaa hadda hal maaha oo laba maaha oo saddex maaha heer waxa uu gaaray nin doctor ayaa khayr Allah si wuxuu ka qoray kitaab mujallad anuna in badan oo kamida meeshan kitaabkan waa ku soo qaatay
بل الصومالي ده ميل يرى كحسوسينيا كتاب كله إلى تحفة الزمان فتوح الحبش إن اللي يقال لبض مقامة وليه إسماعيل عمر قال لا دابعي عن ملاينا لا بكون يسديدي لا بكون ميلها سنة يهد مركو دابعي دابعات داس مركان مقلي هرجيسين يتمت أنا كم بالي شو وحان درسدي ننكسو بحي هرجيسة أيان ودرسدي إنه نسخة كان وأي كان فتوح الحبش الصواب عربي يسكت دابعنا وان هيست النسخة كي صومالي هاي كي عربي هاي ليكن كي صومالي هاي أنا خريج وحنكو أركي مال كي عربي هاي وكويا إلا بدلي وعلى جال إسماعيل عمر قال لي سبحانك وجي لكن لبض أن هنا كتاب كاس ترجمتي أي غلط كاس نبر ككل دنيس هدي نولي هنا أيها دم بجاس وراعية هدي ننتنا ده أيو إلهي هدو عافينا يودافع هدو إلهي عقابيه إلهي حقي سجرته لكن وحن عدينا يا معناها إني خيانة كعين مركي ترجميه أحمد قري أيها وحجري نمان كان هوشيدا هون عيدن كودا عن صرف دينه أيها وحن سوق يعني بل عدود دو وحي لعتها مركزو شنن أو فردولية يعيدن كي كعيست markaasa lagu dhagaalay maya naftaada iyo noloshaada loogu raaxay imaamka nagiya tahay wax ilaaleeyo oo cadow soo arka ka badan noo joogalay markaasuu maya anigu waxaan ahay suufiyadu jihadka waa jecel yihiin suufiga beenbeenta ma suufiga dhabta ah wuxuu jecel yahay naftiisa ku raaxaysanaysa wax walba oo ilaahay raali gelinayo oo jihadku kamid yahay marka sidii uu ku tagay labadii nin kitaabka tarjumaysa maxay dhaheen cibaarada uu adeegsaday kitaabka futuux al-habash ku taala waxay tahay anigu waxaan ahay raahib baan hawlay rahbaaniyintuna waxay jecel yihiin jihadka way jecel yihiin markaasay bedeleen waxay dhaheen anigu maqaamigan jihaadini 98 aan 57 habeen waxaan joogay Djibouti maqaami وصو برت مقامي واقانا markaan aqrinayo maqaami istilaaxa reer Djibouti waan aqaan maqaami Djibouti waxa lagu yaqaan suufi ninkan waa maqaami hadii la yiraahdo waa suufi marka labadii nin maxay dhaheen anigu maqaami maahi maqaamigan jihaadini markaasay hadana si faahfaahiyeen oo maartay suufiyada si jihaad shaqo ku lahayd taariikhda islaamkana dadkii jihaaday oo islaamka maartay wax u soo kordhiyay ragii suufiyada ay Imaaduddin Zinki Nuruddin Zinki ama ka duceysto jeclaa oo ku xiraa ama ba ayagu xaqiiqdooda ah Maxamed al-Faatix oo kale kulli waxay ahaayeen dadkii suufiyada ah aan kala go'ahay ee diinta islaamka jihaadka soo adeegay haday tahay xaqii cilmiga haday tahay xaqii jihaadka haday tahay xaqii maartay usuusha diinta خلافة معناها وحيالات تكفير كي تبديع أو موضوع كالتغان أدبي وتعديلين مركب وهان هذا وحيال اسكع حسوسي لنا مرة هذا وحيال جدا ليلة سلفية مرة سلفية ليلة هذا جدا هذا لا استعماله هذا ذاتك سيقولي أيوة وعا سوء شيئا هاي بدو ده من كمل العثيمين اللي قالوا عليه هاي سلف وضدك هراء أول مناسنان لكن حزب اللي لا سلفية مر عليها واحد لما مجري وليه وقال وليه مركبت مرة على استعمال كيسة وقتها أو صورة الرياء أو إلا استعمال أي تمد وحموي مع بحث القسم الحمد لله على بحثي وكسبه بارك هذا عبد العزيز حلي أو ذلك كان سعودي الدولة دي سي سدحات وأساس مرحلة سدح دولة السعودية سدح مرحلة يصير مرتين مرحلة هو الرئيس آخر من باب الحوالي كان مرتين مرحلة نحاول يصير مرتين مرحلة يبدأ بيس عبد العزيز وهو جاملي وهذا وليش يصير كلام حلين ayaa waxa la bilaabay in salafiyo ay la baxaan dhulka madhabkii Maxamed al-Hafiz koorna waxa kitaabada ku qoran inay isticmaalayeen
مقع اللي مسلمين مؤمنين موحدين استعمالي وهتقدر كرتا مقع سنوها مقع شائعة مركي انت كسو دولة مقالة مكاهي قبسانيين وحيكون مقع عينك كسو دولة وها عينك موحدين هدانا هاي معاشر الموحدين مقالة مكان صوغة لي كل يوم قرطبانية سديدي مالين سبتها بشر محرم أي تطبطها مع عبد الله ملكي سعد الله رسالة وقرأي إسلام تعالى وأنا رسالة مطبوعة عدة سوى الكرم مقالة مكان صوغة لأنه ومضح نوحي الحماية مالين محان صوغة من سبتها بشر محرم أي تطبطها وحيمانه يدلها كالموحدين وحمشركين تانا ورهيب مكان رسولكم الرهيب مكان محبو شاك مركي مكان فتكاكل على المسلمين المغضين لا هجرة بعد الفتح مكان مركي لفتكاكل هجرة مكان لا هجرة ولا مجد محاك عالي مكان وحين متدار الإسلام تاريخ نجدي هذا الموضوع أنا كأهلكم أنا تلاقي لكن تاريخ نجدي هذا حافظي يا الله تاريخ نجدي وحاقوتها الله هي تاريخ يقولها ابن بشر أو العنوان المجدي في تاريخ المجد وحاقوا يعني مقالة الدرعية إلى نداء الهجرة الوطني ابن باز يقول لي فتاوي يسمون على الدرب وحكولة يعني دين توحيدكم waxay ka faaftay magaalada Darciya ila markay baarmaan kadib hawaanu majlisna maxaa kugu yahay inay Darciya ay noqotay daar hijra maxay ku noqotay markii maxaa ku lahaa توحيدka ka bilaabay oo leeyahay waan soo waayay wax توحيد haysta ee uu ka bilaabay magaalada Uyayna oo kadib abiirkeedii Uthman ibn Ma'mar ay isqabteen oo inta ka hijrooday oo Darciya dadkii wuxuu ku laazimiyay in loo soo hijroodo oo la yimaado magaalada la Darciya markaas wuxuu leeyahay ardaygiisii iyo maariqintoodu waxay leeyihiin waxay noqotay Darciya daarul hijra daartii loo soo hijrooday ibn Baaz oo muftiga dalka Sacuudiga wuxuu leeyahay tawxiidku Darciya ka faafay markaas jasiiratul arab ku faafay Hijaaz iyo Ghayrkii ku faafay marka ahlu sunna wal jamaa tawxiidkeedu ma kala goy diinteedu ma kala goy nimanka hada salafiga leeyahay tawxiidkoodu waa soo kala go'ay salafkii iyo inta u dhaxaysa ibn Taymiyyah waa kala go'naa bal xataa Abdurrahman ibn Hasan ninka mujidka iskala wuxuu leeyahay awowgay maxaa Abdullah iyo salafkii intii ka dhaxaysay tawxiidku wax sheegaba ma jiraan leeyahay عبارتي سي او ان عيد wax ku daraysa oo rasaara oo baday oo leeyahay nicmada Ilaahay nasiiyay ayaan alle u mahad celinayna inaan nicmadaas Ilaahay u mahad celinaa waxa lagu waajibiyay islaam hadii la yiraahdo inaan anaga ahay marxuu muslimnimada dhanba anaga khaas u tahay cibaarada mid lamid ah waxa ka haya ibn Baaz kitabkiisa fataawi umur ala darb wuxuu leeyahay sidii asxaabta rasuulka ninkii rasuulka raacay oo dhihi jiray shirkiintu dhihi jireen saabi waaye oo nin diintiisii ka tegay waaye ayaa hadda waxaa la yidhaahdaa ninkii tawxiidka qaatay wahabi xilli asxaabtana ninkii tawxiidka qaatay maxaa la dhihi jiray mushrikiin carab ay dhihi jireen saabi haddana maxaa la yidhahdaa ninkii tawxiidka qaatay wahabi توحيدنا وحلاه وقبل الله سبب بعض كده تبعيه قبل الله مركع على نكال بينلو ننتهي ندير مراتب قبصها أنا وحنا مراتب قبصها ما كتبوا مكة كبره وأقوى أيام قرتين مطبوعة أو طابعة كسر هذا اللي يصير بوطنا وهتبدأ ليس إنه توحيد كمرة حلقاته هالمغلى يصير ندهايا ولا ده هذا اليوم كمان عن هرب ولا عينين كمله ورجع مجانا ملاجئ وكمله
أنا طبعاً تضبط سنتها وحلو وهو حريق حوتية شو وعندي جلو شعب الغادرو كون كوحدو أسال شعب السيلان ومامور هذا بيئة أصلا كتابة خصية وكل شيء على أساس أمثالي وهذا هذه المركز هذا مسلمنا هاجيه أمثال هاي الموضوع وهذا المتغير قفك أمثال كون كان إلهي كسكو علم مامور إلي جبتو إسلامي ما مالك كل سوقي قفك وأنا وياي أو ما خالق أو حمور على كل يومي مثل وحمار إلهي كل يومي صومالي اعتقاد كاسي لها بالمدد يعمل وهكذا كمدد مقلة أنا لو كنت غني يسرح يعني هذا كان عادي سلو ذاك الصوت ماشي مع الخير أيضا يبدو هذا الكمبيوتر ماشي سيال الصوت كيسي مع الصورة كيسي وهاي حتى دقيقة دي أنا هاي وهذوي واقع وحشية احتفال كمولد كان الملايين دولة على الكبحيان وقد بجمع على البلد هرتاويه مركز البلد مليارات الكبحيان ملايين تياريات مركز البلد مليارات على الدولة على الكبحيان ضدكاس أما العلم له هو أمين كرمفكاس ما يلاتها هو أنا حتى المسألة لو وما السوشيال ميديا هلوي منها موضوع منطقة وأولئك المؤمن كاهن ألويتي نالك موضوع منطقة المؤمن كاهن نالك موضوع الماضي أولئك إما أسعيد مركز الماء سواء المشاكل كبش وهذا اللي كاهن هو رانا لها نالك المؤمن كسعاشية هذا الكيس معروف يسرى قيبته هراء قيبته دمره ويسبوه ليسان هذا الكيس معروف ناق دورنا أو ولي النكاحي عامي علماء وأوليين يسحرانهم هناك أساس برنامج قف مسلم هو مارته أنت أسمعته ما جرتوا بالبرنامج هو يعني قف هذا الأبي هاي اللي سحران وهاي أصير أو متعصب بين إسكان بعد عيال العوائل برناتها أو ميشتو أو ترى ما هو غريب معلوم من الدين قفك إنكار شيء معلوم أو من الدين إلى حارانتها لو قفك حاشا وقال زنا الأسلوب قفك إلى الزنا حارانتها هذو زنا سوا دل كلها لكن زنا هذو حارسه هذو اسمه سيو اسمه سيو وهذا كلام قف كسر مسلم إيه أكتهاي ناق مطلع ليس حرام واحد سؤال شنو واحد هذا ناق دورنا أو لوسيين لكن أنا بقول نكاح حتى قال النكاح الشرع هو أقبله نكاح قال شرع الإسلام هو أقبله ونقول هذا أصول قال ناق رسول الإسلام ناق الشرع الإسلام كم هذا نكاح سنة لما ده نكاح يسوى ربع ديه أفر يقرني وتالي أفر كذا وصار مسلم مركا يا هو أنا نكاحين الدور نقع حتى أبطل قالوا وحياة سوق عسى لكن نابت الوحي نكاح يقانين أجل مركا وهكذا أنت سبحان الله يعني أمانة العلم إلهي ووحوي مركا إلهي تنتي سابقوا الهاميو طريقة صنوة يا جماعة الله مراسيو وأنا أخذت مذهب شافعي عن هوا ولا هاي إلهي أنت أسمع سرعة على كينا يو أول بنت المهين الله ما يسلم أمة المسلمين تعدد سواء صلى الله عليه وسلم وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته